بسم الله الرحمن الرحيم inkastuu bad qabo ruuxu sawdan uu bukoon maayo oo qalbigii budweyn la dhacaa soo burburi maayo marar badan waxa dhacda in ilmaagu uu dhaawac jid ahaan u soo gaaro deetana aad la tacaasho wixii aad ka badin kara weedana aad isbitaalka ula cararto si wax looga qabto laakiin waxa jira dhaawacyo fara badan oo ilmaha nafsi ahaan u soo gaara ishuna aanay qaban mar badan ay dhici karayso inuu ka soo gaaro barbaariyaashiisa sida waalidkiisa ehelkiisa ku xeeran iyo macallimiintiisa waxa laga yaabaa dhaawaca jid ahaan u soo gaara ilmaha in muddo kooban uu ka booldo oo ka biskoodo laakiin midka nafsi ahaan u soo gaara in waaye badan uu la noolaado oo ay mararka qaarkood ku kalifto in mushkilaadka faraha badan ay nolosha ku soo tuurayso turunturooyinka iyo turxaanta faraha badan inuu u babacdhigi kara waayo oo ay ka adkaadaan muuqaalkan kooban waxaan jeclahay inaan idinkula wadaago 4 arrimood oo ilmaha naf ahaan dhaawac u gaarsiiya oo ay tahay waalidkiisa iyo ehelkiisa iyo macallimiintuba inay ka digtoonaadaan arinta ugu horeysa waxa weeye qaylada runtii in badan waxa dhacday in waalidku ilmaha uu ku qayliyo qayladu culimadu sida ay tilmaamaan iyo daraasaad la sameeyay sida ay sheegayaan ilmaha maskax ahaan korriimadiisa maskaxeed ayay hoos u dhigtaa oo hagaasisa marka runtii aad ayay muhiim u tahay qaylada in ilmaha laga daayo oo aan qalbigooda la dhaawicin arinta labaad ee ilmaha naf ahaan u dhaawacda ama naf ahaan u burburisa waxa weeye barbardhiga mar badan waxa dhacda waalidku inuu ilmihiisa is barbardhigo oo yiraahdo hebelba intaanu xisaabta ka keenay maxaad adigu uga keeni weeday biology-ga inta buu ka keenay maxaad uga keeni weeday ama waxa laga yaabaa inuu barbardhigo ilmo kale oo iskuulka isla dhigtaan ama ay diris yihiin oo yiraahdo hebel sidiisa maxaad u noqon weeday arinta runtii ilmaha kalsoonidooda ay isku qabeen naftooda ay ku qabaan ay hoos u dhigtaa ilmaha walaalaha hadii la isba barbardhigana waxay ka dhex abuurtaa colaad ku salaysan xiqdi iyo xaasidnimo dhexdooda ay ka abuurtaa marka ilmuhu waa kala intelligence garaadkooda iyo mawhibaadkooda way kala duwan yihiin waxa laga yaabaa ilmaagu inuu xisaabta mid kamid inuu ku wanaagsan yahay baa laga yaabaa ka kale laakiin wax kale kaga wanaagsan yahay baa laga yaabaa inaad isbarbardhigtid runtii ma aha arinta saddexaad ee ilmaha naf ahaan dhaawac u gaarsiisa ama naf ahaan u burburisa waxa weeye gulgulka in ilmaha lagu baqageliyo hadaan sida ku yeeli waayo hadaan aabaha ku sheegi waayo maanta aabaha ha yimaado hadaan macallinkii ku sheegi waayo oo ilmaha macallinkiisi iyo aabihii lagu baqageliyo ama maanta oo dhanba loo dhaarto oo la yiraahdo sida hadaan sameyn weedo hadaan sida ku yeeli waayo runtii ilmaha dhaawacaan bay naf ahaan ayay u dhaawacdaa arinta labaadna waxa weeye waxa suurtagal ah macallinka aad ku baqagelinayso in uu naco maadadii uu barayay iyo wixii uu dhigayayna in uu naco sideedaba ma wanaagsana in ilmaha lagu baqageliyo macallinka wax u dhigaya quraan midka u dhigayana waa ka sii xig jirta waayo waxa laga yaabaa inuu naco oo macallinka uu karahsado oo uu dhibsado aabihi dad ku baqagelisan waxa laga yaabaa aabihi inuu ka baqo halkii uu ku soo carari lahaa ee aabihi uu iman lahaa ee uu mucaanaqayn lahaa ee halka laabta gelin lahaa inaad ku baqageliso oo aabihi markuu guriga yimaado uu soo kor u cararo arinta afraad ee aan ku soo gabagabeynay ilmaha naf ahaan u burburiso waxa weeye inaad ku tidhaahdo erayo wax dhaawaca runtii erayadu aad bay u awood badan yihiin markaad ilmaha ku tidhaahdo nacas doqon baa tahay fulay baa tahay iyo erayada la halmaala meel adigu aadan ka filanaynin oo aan adigu wax saas eray aan muhiim ku lahayn ayaa waxa laga yaabaa inay maskaxdiisu qayb weyn ay buuxiso oo mustaqbalkiisa dambe ay saameyn ku yeelato ilmuhu intay yar yihiin malaha qaybta wax filter gaaraysa malaha ilmuhu wuxuu bay record gareeyaan wixii aad ku tidhaahdo un bay qaataan oo rumeeyaan marka erayga aad ku oranayso waxa laga yaabaa si fudud inaad u tidhaahdo ama inaad ku canaananayso ama inaad ku dhiirigelinayso sida marar badan waalidka Soomaaliyeed dhacdaba laakiin eraygu aad buu awood badan yahay waatiyalkii uu shaacirkii Soomaaliyeed uu lahaa afku wuxuu la xoog yahay magaliga xawda ka jira marka ka fiirso erayada ilmaha ku oranayso hadaad macallin tahay iyo hadaad waalid tahay iyo hadaad ehel tahay
ka fiirso dadka waaweyn ayay muhiim tahay inuu qofku ka fiirsado erayadu ku oranayo ilmaha yaryarna iska badaa waxaan rajaynayaa in muuqaalkan kooban in uu kugu baraarujiyay inaad iska ilaaliso qaylada ilmaha aad ku qaylinayso inaad guulguusho oo aad ku baqageliso macalinkiisa iyo waalidkiisa sida aabihiisa oo kale inaad isbarbar dhigto dhexdooda ilmahaaga ama aad barbar dhigto ilmo kale iyo in aad erayo taban oo wax dhaawaca oo naftiisa wax u dhimi karaya inaad ka ilaaliso aad baad u mahadsantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.